بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan waa salaamaya walaalaha channelka ku jira sidii dhaqankeenu ahaa bil walba marka ay bilaabato waxaynu soo raadin jirnay oo aynu channelka soo koorasyada ay bixinayaan jaamacadaha dunida daafaheega ku yaala oo loogu talagalay arday waliba meesha uu joogo inuu kaga faa'iideysto sidaynu la wada socono maanta waxbarashadii waa laga gudbay kaliya ta ahayd offline-kii ee macallinkii iyo ardaygii ay soo joogeen gaar ahaan imika waxbarashooyinkii iyo shaqooyinkii inta fasax lagu wada jiro waxa muhiim ah inaad dhisto aqoontaadana aad dhisto adigoo ka faa'iideysanaya shahaado sarana ka qaadanaya jaamacadaha dunida ku yaala horta marka koobaad intaynaan barnaamijkeena bilaabin waxaan aad ugu hambaleynayaa walaalaha tirada badan ee ii soo diray shahaadooyinkoogii ay ka faa'iideysteen bishii ina dhaaftay dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo insha Allah inteena kale inaan ka faa'iideysanina waxaan rajaynayaa bishan haddii ilaahay ina gaarsiiyo koorasyada kala duwan ee ay jaamacaduhu bixinayaan inaynu dhammaantiin ka wada faa'iideysan doono sidoo dhaqankeenu ahaa waxaynu u kala qaybin jirnay koorasyada qaar ku baxa luqadda carabiga iyo kuwa kale oo ku baxa luqadda Englishka waxaan aad uga xumahay ilaa hadda inayna jirin dhigi jirnay koorasyo bilaasha oo loogu talagalay ardayda Soomaaliyeed inay bishii ka faa'iideystaan insha Allah marka intaynu halkaa aynu ka gaari doono waxaynu ka sii faa'iideysan doonaa jaamacadaha caalamiga waxaan ka bilaabayaa koorasyada ku baxaya luqadda carabiga bishan qofkii garanayay ka faa'iideysanaya waxa baxaya koorasyo aad u fara badan aadna u faa'iido leh waxaan ugu horreysiinayaa waa kooraska loo yaqaano al-lugha al-ingiliisiya limakaan al-amal waa kooraska ugu muhiimsan bishan aniguna insha Allah ta'ala aan ku tala jiray inaan isdiiwaan galiyo oo ka faa'iideysto dhigto waxa loo yaqaana kooraskan waxa weeyaan waa waxa af Englishka lagu yiraahdo waa English waa business English weeyaan sidaynu la wada socono ardaygu marka ugu horreysay ee uu soo qalin jabiyay waxa uu raadiyaa shaqooyinkuna maadaama inta ugu badan interviewga lagu qaado luqadda Englishka waxa loo baahan yahay inuu ardaygu iska dhiso oo uu yaqaano waxa la yiraahdo business Englishka marka aad CV-ga xareysanayso waxa laga dhisi doonaa telefoon haddii lagala soo hadlo sidaad uga jawaabi lahayd oo af English u adeegsan lahayd waxa laga dhisi doonaa haddii aad shaqada hesho lafteeda sida aad af English ugu hadli lahayd asxaabtaada iyo managerkaaga iyo dadka kula shaqeeya marka al-lugha al-ingiliisiya limakaan al-amal baa la yiraahdaa waxa bixinaya al-majlis al-thaqafi al-britani baa bixinaya waxaana insha Allah ay nagu soo hagaajinayaan oo ay ka qaadan doontaan website-ka loo yaqaan idraak dhammaan website-yada oo dhan haddii carabi noqdaan iyo haddii English noqdaanba horeynu uga hadalay horeynu channelka u soo dhignay sida la isku diiwaan galin karo kooraska labaad ee doorkan luqadda carabiga ku baxaya waxa loo yaqaanaa masaaq al-mahaaraat at-taqniya baa loo bixiyey waxa uu daba socdaa isla kooraskii hore ee business Englishkii ee al-lugha al-ingiliisiya limakaan al-amal kooraskan waxa loogu talagalay in ardayga ama qofka baranaya laga dhiso waxyaabaha ama xirfadaha basiga ee uu baahan yahay si uu isticmaalo computerka sida Microsoft Office oo ugu horeeyo oo uu ka mid yahay marka dhammaan waxyaabaha ama xirfadaha computerka ku saabsan ayaa laga dhisi doonaa insha Allah ta'ala laga faa'iideysto kooraska saddexaad ee luqadda carabiga ku baxaya bishan waxa loo yaqaanaa التحليل الإحصائي والاقتصادي للبيانات باستخدام برنامج EVIUS saynu la wada socono ihsaa'iyadka ama statisticsku waxay ka mid yihiin tiirasha ugu waaweyn ee go'aanada dunida lagu qaato haddii ay tahay si shakhsi ahaan qofku go'aan uu qaadanayo haddii ay tahay dawladii go'aan ay qaadanayso haddii ay tahay shirkadii go'aan ay qaadanayso dhammaan waxa lagu beesgareeyaa waa statisticska iyo ihsaa'iyadka bishan shanaad ayaad ka faa'iideysan doontaa iyaduna lagu bari doono rawaaq baad ka qaadan doontaa insha Allah shahaadada waxaana lagu bari doonaa barnaamijka caanka ee loo yaqaano EVIUS hore waxaynu u soo dhignay iyadoo lagu baranayo barnaamijka kale isagana loo yaqaano SPSS-ka halka haddaynu kaga nimaadno koorasyada ku baxaya luqadda carabiga oo aynu u nimaadno kuwa ku baxaya luqadda Englishka bishan iyagana dhowr kooras oo waxa jira luqadda Englishka ku baxaya oo aad u muhiim ah ka ugu horeeya waxa loo yaqaanaa waa Science Matter let's talk about COVID-19 saynu la wada socono imika dunida waxa aafeeyay masiibada weyn ee loo yaqaano COVID-19 ama coronavirus loo yaqaano marka jaamacadda caanka Ingiriiska ku taala ee Imperial College ayaa waxa uga faa'iideynaysaa ardayga ka faa'iideysanaya in macluumaad asaasi laga siiyo caafimaadka guud
guud ahaan cudurrada siday u faafaan iyo sida looga hortegi karo. shahaado muhiima ayaad halkaa ka qaadan kartaa. qofkii shaqo doonana waa shahaado aad uga anfici doonta, gaar ahaan intan iminka coronaviruska lagu guda jiro in uu ku codsado oo kula shaqaysta hay-adaha. marka ha laga faa'iidaysto qofkii caafimaadka danaynaya. kooraska kale muhiimka isagana bishan aynu qaadan doono waxa uu gaar u yahay ardayda engineerinka. in badan bay injineeradu ay sugayeen inaynu bil walba aynu ku soo darno koorasyo, laakiin waan ka xumahay mar kasta koorasyada engineerinka way nagu yaryihiin. laakiin bishan injineerada waxaan leeyahay waxaad ka faa'iidaysan kartaan kooraska loo yaqaano Responsible Innovation Ethics, Safety and Technology. kooraskaas oo website-ka edX la soo geliyay ayaad bishan insha Allah aad ka faa'iidaysan doontaan. haddii aad jeceshahay paintingka, sawirka iyo oo jeclaan lahayd inaad barato in laga dhiso xirfadda sawirka, inaad sawir gacmeed aad qaado, waqtina aad u weyday, doorkan bisha shanaad chance waxaad u haysataa inaad ka faa'iidaysato kooraska loo yaqaano In the Studio Post-War Abstract Painting. kooraskaas oo loogu talagalay dadka jecel sawir gacmeedka. ugu dambayn kooraskan kusoo gabagabaynayna bisha shanaad waxaa loo yaqaanaa waa Framing Your Communication to Inspire and Conveyance. dabcan qofku marka uu rabo inuu hogaamiye noqdo oo ummad hogaamiyo ama uu naftiisa hogaamiyo oo bulshadiisa wax taro, waxaa lagama maarmaana inuu xirfad u leeyahay inuu dadka saamayn karo. kooraskan markaa muhiimka bishan waxa aad ku baran doontaa communicationka, wada xiriirka iyo qaabka aad u saamayn lahayd bulshadaada. waa kooras muhiima, juhdi badan iyo waqti badanna kaagama baahna. bishan shanaad inta lagu guda jiro ayaad ka faa'iidaysan kartaa. dabcan sidaynu la wada soconno maanta waxbarashadu maaha un keliya tata jaamacadda lagu dhigto, laakiin waxa qof waliba isagoo gurigiisa jooga ayuu wax isbari karaa una wax baran karaa. aqoon bilcilmi tubna al-umamu baa layidhi. ummadaha aad aragteenna dhismay waxa lagu dhismay waa cilmi ayaa lagu horumaraa. shakhsiyadda dadkuna waxay ku kala fadli badan yihiin waa cilmiga. mar walba inta aad isbarto ayaad dadka kaga horraysaa. inta laga gaarayo bisha dambe ee June, haddii ilaahayna gaarsiiyo nafta inoo daayo, waxaan idinkaga tegayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.